diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines balmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda 150 qof ay ku qurbeeshay waad maqashay ma noolayn ya 120 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaatay waxay gashay roob iyo buuro waana meelaha diyaaraddu ay ku dhacday ugu way garirtay markaa kursigana aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaradii way garirtay markaa quraan kan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku la ilaaha illa allah markaas uu yiri igu cali way garirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan la ilaaha illa allah markaas la ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi wa masa ajiiba markaasaan ayaan ku ori xal cabsoon ma kuli odayada waxay cabsoon odayada marka aniga ila socday niman culimo Djibouti baa hayano ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo marka kursiga dusheeda iska khoorinayaan markaasaan ku ori kuwa hamay cabsoonayaan adoo xal cabsoon wuxuu yiri kuwaas way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu yiri kuwaas waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyan ku jira waxa marka wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaaman doonayaa buu yiri hadalkii hadana Saudi garirta diyaaradii markaas uu hadana lugtii qabsaday war isiida la ilaaha illa allah markaas uu iga dabeeyo la ilaaha illa allah diyaaradii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamta wuxuu yiri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdeeda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri rag badan oo ganacsato muslimiin ana saaxiib aan lahayn buu yiri marka iisoo duceeyay buu culimadan ay ugu sheegay iisoo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu yiri hadalku halka noo maray marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuusay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة هذاك مركي كنت مع دبا إلهي كوا قال هذا حاجة أصور ده حاجة إلهي فرعون مركي لقب تبع آيات لا تصبع نبي موسى صور تجربة لي وقال يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز